khasaaro labada dhinac soo kala gaaray wuxuuna ugu baaqay dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Galmudug inay u istaagaan ka shaqeynta diminta dagaalka waxna laga weydiiyo ahlu sunna dagaal baa dhacay niman hor aan ugu dignay oo Sheekh Xasan Ali Xasan oo hogaamin jiray maaragtay hogaamin jiray safada la oran jiray dagaal ay hogaaminayaan oo dagaal shacab ahayn dagaalkaas waa dagaal weerar oo qaawan oo dad shacab lagu qaaday oo qarxay khasaaraha ka dhashay dad badan baa ku dhibaatooday innaga dhibaato badan bay noo geystay iyagii soo weerartay dhaawac culus baa ayaa ka gaaray iyo 10 nin oo dhaawac ah iyo 5 dhimasho ka gaartay dhinacina maxaa khasaara waxa khasaara oo naga gaaray ilaahay baa naga magan galiyay hal nin baa naga dhaawacay Soomaaliyeed wuxuu kaga beegan yahay dhinaca waqooyi galbeed dowladda deegaanka xeeraale la yiraahdo meel ku dhow oo mirac la yiraahdo miyiga weey ahlu sunna iyo annagu ismaaysanno ahlu sunna waxa weeye waa ururka islaamka ahlu sunna wal jamaa la yiraahdo annaga kamid ah waa dallad weyn oo muslimiintu ay leedahay oo isugu timaad dadka midka xaqooda fiican leh dad dhibaato وصل لي على وجهه حتى صدي لي ورد قلبي معنا markii ugu horeysay ciidamada